dowladda waddanka Turkiga ayaa sacad uga soo horjeestay aqoonsiga ay dowladda Somaliland ka heshay waddanka Israel oo iyadu hogaamisay wadamada ku dhawaaqay aqoonsiga ay Somaliland ka helayso caalamka. Turkiga ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo uu ku doonayo inuu ku hagardaameeyo Jamhuuriyadda Somaliland oo dhawaan heshay dib u aqoonsiga ugu horeeyay caalamiga. waxaanu Turkigu argagaxiyo deganaansho la'aan ka qaaday aqoonsigan ay Somaliland heshay isagoo u arka inay dhaawacayso danihiisa Soomaaliya ee uu halkaasi ka hirgashaday 10 sano ee u dambeeyay. Turkiga oo la wareegay ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya sida dekedda magaalada Muqdisho, garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, adeegyada caafimaadka ee magaaladaasi oo ay cisbitaallo ka mid yihiin iyo waliba kheyraadka dhinaca kalluunka oo koota uu ku qaatay iyo dhinaca shidaalka dalkaas ayaa u arka aqoonsigan Somaliland heshay mid dhaawacaya danihiisa dhaqaale isla markaana keeni kara inay meesha ka baxdo saameyntiisa gobolka Geeska Afrika. Saameyntan Turkiga ee Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay inay dalkaas ka dhigtay nooc gumaysi oo dhinaca dhaqaalaha maadaama heshiisyada kala duwan oo $100,000 uu ka helo Turkigu ay banaanka uga baxdo Soomaaliya iyadoo qandaraasadan lagu dhaliilay daafurnaan la'aan hoos u dhigid dakhliga dawladda iyo abuuridda isku dheelitirnaan la'aan ganacsi oo si weyn ugu janjeedha dhoofinta Turkiga. dib u eegis lagu sameeyay heshiisyada wadaagga dakhliga ayaa muujisay in dakhliga dekedda iyo garoonka uu si weyn uga wareegay dawladda una gacan galay shirkadaha Turkiga iyadoo la sheegay in saamiga dawladda ee dakhliga dekedda uu hoos uga dhacay 55% isla markaana uu gaaray 16% mid ka mid ah waqtiyadii ugu adkaa ee Soomaaliya wajahday. heshiisyadan oo inta badan aan marin ansixin baarlamaan ayaa xoojiyay danaha dhaqaale ee Turkiga ee xudunta u ah dhaqaalaha rasmiga ee Soomaaliya. aqoonsiga Somaliland ayuu Turkigu u arkay mid khatar weyn ku ah danihiisa dhaqaale ee Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaanay bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin ay kula dagaalamayaan Somaliland. wasiirka arrimaha dibadda waddanka Turkiga ayaa sheegay in aqoonsiga Somaliland ay ka dagaalamayaan waanay doonayaan in Somaliland noqoto dal la aqoonsan yahay isagoo xuseen Somaliland meesha ay ku taalo waa meel muhiim ah oo gacanka cadmeed iyo afafka marinbiyoodka Baabil Mandaba awgeed aanay ku ogolaaneyn inay cid kala timaado kana hortagaan in dalal kale aqoonsadaan Jamhuuriyadda Somaliland. Turkiga ayaa isku dayay inuu khalkhal gelin dhinaca amniga ka sameeyo Jamhuuriyadda Somaliland isagoo maalmihii u dambeeyay hubiye saanad ciidan siinayay dawladda Soomaaliya si uu uga hortago aqoonsiga Somaliland una difaaco danihiisa dhaqaale ee Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho kuwaas oo u arko inay soo wajahday khatartii ugu weyneyd. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa habeen hore sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ka dhana aqoonsiga Somaliland isagoo kaashanaya dalka Turkiga. Turkiga ayaa 15 sano u dambeeyay waxa uu ku sugnaa deegaanada Soomaaliya isagoo gabi ahaanba ka gaabsaday inuu qayb ka noqdo dagaalada lagula jiro kooxaha nabaddiidka. taa beddelkeeda Turkigu waxa uu diiradda saaray isla markaana ujeedadiisa koowaad ka dhigtay urursiga dhaqaalaha xoogan ee gudaha Soomaaliya. ma ogtahay macmiil in shirkadda Super